داوديال طبعا وسام هوريدي ku sheegnay sideedii bisha waa arbaca waa qodobadii iyo warbixinadii dhinaca diblomaasiyadda waa sideedii bisha sideedaad 2018 qodobkan daawadayaal waxaan jeclahay inaan isku kortaagno dawladaha Canada iyo Saudi Arabia marxaladoodan iyo waxyaalaha cirka ku sii shareeray aynu laba qodob kala qaadno marka horeysana aan ku horeeyno arintu wax ay daaran tahay iyo waxa larkan hadeerta kiciyay iyo gudaha dalka Saudi Arabia wax ka soconaya sida la og yahay dalka Saudi Arabia oo ay iska yar tahay in galaangal warbaahin madax banaan ay u yeelato ayaa inta badan warbaahinta ka jirta ay tahay mid markaas dawladdu ay xukunto oo dawladda hoos tagta sidoo kale xataa waxa ay dawladdu mamnuucdaa oo ay la socod iyo waliba wax loo yaqaan ay monitor garaysaa oo ama ay sax ay dabcan ay indhaysaa warbaahinta gaarka loo leeyahay aan iraahdo warbaahinta social media loo yaqaan ama warbaahinta bulshada ilaa hadda waxa ka jirta cunaqabatayn xagga warbaahinta dalka Saudi Arabia sidoo kale waxa indhaweyta ka jiray isbedel xooggan marka aynu intaynan eegin wararkii ugu dambeeyay ee marxaladan Canada iyo Saudi Arabia oo cirka isku sii shareertay iyo waliba hadallo kale soo baxay horta gudaha Saudi Arabia maxaa loo qabqabanaya dadka kooxdan ama qoyskan la yiraahdo qoyskan hadeerto reer Badawi la yiraahdo ee gobadhan Samar Badawi ee ka dhalatay nin xiran oo walaalkeedu la yiraahdo Raif Badawina oo ka dhashay waxa lagu yaqaan qoys olole ka dhana dawladda dalkaasi Saudi Arabia gaar ahaan dawladda ma gaar ahaan qoyska talada haya reer Al Saud qaaday qadiyada dad badan inay iskaga khaldanta baa laga yaabaa ama dad badan ay u maleeyaan in dawladda Saudi Arabia ay la dagaalamaso dhaqan xumo laga yaabo inay gabadhan iyo ama qoyskeedu ay wadeen oo leeyihiin gabdhaha weyn isqaawiyaan siyaasaddaas waxa wata Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz laakiin dhaqdhaqaaqa gabadha Samar Badawi la yiraahdo iyo walaalkeed iyo waliba kooxahan kale la shaqeynaya ee wateen maaha taas waa mid ka sii salfog oo ka sii saldheer waxay doonayeen in dalka laga doorto xildhibaano baarlamaan taladana dadka wax laga siiyo dadka kale shacabka ah ee qoyskan aan ahayn waayo qoyskan ayay talooyinka waaweyn haday tahay talooyinka ciidamada haday tahay golaha shuurada haday tahay golaha markaasi sharci dejinta iyo haday tahay yaani dhamaan awaamiirta dhaqaalaha ee dalka iyo gabi ahaanba ciidamada oo dhan ayay hoos tagaan sida daraadeed ololaha markii hore waxa bilaabay wiilka leeyahay Raif Badawi wuxuuna ku baaqi jiray in loo ogolaado dadka reer Saudi Arabia inay talada dalkooda wax ku yeeshaan isla markaana ugu yaraan ismaamul hoosaad la siiyo dadka kale ee qoyska reer Al Saud ka aan kamid ahayn oo dabcan oo dalka Saudi Arabia u bixiyay laakiin dalka dad badan oo la yiraahdo wax laga yaabinaysan aqoon dalkan waxa la oran jiray Xijaas ama magaciisa Xijaas la oran jiray laakiin qoyskan markay qabsadeen ayay magaciisa awowgood ugu magac dareen oo reer Saud maartay Saud reer Saudi way u bixiyaan waxayna ku dareen Saudi waxay ku dareen Saudi Arabia bay ku dareen markaasi ama Saudi Arabia markaas loo bay ku Arab bay ku dareen ama dalka Saoudiga Arabta markaasi dalka Xijaas baa loo jiray sida daraadeed dawladda dalka Saudi Arabia waxa ay bilowday oo si xoogan markaas u bilowday in ay arintan ka hortagto arinta Mohammed bin Salman oo wado ee gudaha ka socota iyo arintan gabadhan iyo waliba qoyskeedan ay wadaan iyo gabadha kale iyaduna la xiran iyo waliba dad kale oo trabeelo aad loogu xirxiray dalkaasi Saudi Arabia waxa ay ka turjumayaan in aysan dawladda Saudi Arabia iyo Mohammed bin Salman aysan doonaynin in awoodda dalkaasi cid kale soo fargashato in hadii la eego oo la yiraahdo waxa laga yaabaa in gabadhanu ay ka hortimid shuruucda dalka Saudi Arabia oo qayb ahaan shariicada islaamka laga dhaqmo oo yaani waa xaqiiq waana dhab in qayb ahaan shariicada islaamka laga dhaqmo oo dalkaasi ama lagu fuliyo xadadka qaarkood lagu fuliyo qaarkood halka la aaminsan yahay in aan qoyska reerkaasi ama qoyska talada haysta ee reer Al Saud aan aysan inta arintaas aysan saameyn ama aan lagu fulin hadaba si kasto ha noqotee arinta ugu weyn ee muhiimadda ah waxa weeye Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz wuxuu ogolaaday markii ugu horeysay in dhulka barakaysan ee Saudi Arabia ay yimaadaan Hollywoodka aktarada ama filayaasha Hollywood isla markaana aflaan ku sameeyaan wuxuu kala ogolaaday in dalka Faransiisku uu bilaayin dollar ku siiyay in ayaguna ay shirkadooda dhinaca filmaan sameynto ay filmaan ku sameyso wuxuu kala ogolaaday in 100 tiyaatar ama 100 meelaha loo yaqaan masraxa madadaalada laga furo oo meelaha heesaha iyo aflaanta iyo lagu daawado laga furo wuxuu kala ogolaaday in magaalo 500 oo bilyan lagu bixinayo dalxiisa oo dumarku ay xitaa maryahan jilicsan ay qaadan karaan ay qaqaawan
laga dhiso wuxuu kala ogolaaday oo uu ku siiyey dhowr iyo 20 shirkadood oo dhammaantood reer galbeeda bilaayin dollar ayuu ku siiyey inay dalkaasi ay maal gashadaan wuxuu kala ogolaaday sharci ogolaanaya in dumarku ay baxaan markii ugu horeysay waxa loo yaqaan muxram la'aan oo iyagu muxram la'aan gabdhuhu ay safri karaan wuxuu kala ogolaaday in laysanka ama shatiga baawar wadista ay gabdhuhu qaataan inkastoo taas ay caadi tahay oo diiniyan culimada badankooda horay ay uga hadleen oo ay sheegeen in gabadhu ay danaheeda iyo caruurteeda ay ku soo qabsan karto ama shaqadeeda ku aadi karto wuxuu kala Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis uu ogolaaday in shirkado markaasi xayeysiina oo ah kuwa waliba kuwa xayeysiya waxyaalaha modelka loo yaqaano inay dalkaasi yimaadaan oo dabcan ay dalkaasi xitaa lagu qabto bandhigyo noocaas oo kala sida daraadeed يعني ما jirto markaas qadiyad arin diimeed ama diinta ay ugu helinayaan oo arintaas balse waa arin siyaasadeed waana awood wuxuuna u arkaa gabadhan iyo reerkan qoyskan isku xidhan ee markaas dhaqdhaqaaqa xoogan samaystay isla markaana dalalka dimuqraadiyadda iyagu ama dalalka la isdoorto aad xiriirka ola yeeshay in ay faafi karaan in dadka Saudi Arabia oo ayaga aad moodo in laga dhaariyay ama looga dhaartay inay xilalka dawladda qabsadaan wixii aan qoyskaas ahayn ay toosiyaan oo wixii ama wixii loo yaqaan Arab Spring ama guugi carabta oo kale uu ka kacaamo ay hormuud u noqdaan waana arinta halka laga duulaya waa halkaas balse qatiyad diimeed oo dalka Saudi Arabia ama Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis uu difaacayo ma jirto tusaale kale dalka Saudi Arabia dalalka ugu badan ee xiisada siyaasadeed ay kala dhaxayso waxa weeye dalalka islaamka waxaana idii tirinayaa dalalka markaasi caalamiga ah ee dalalka islaamka waaweyn ee dalka Saudi Arabia uu xiriirka ugu xun la leeyahay dalalka xiriirka ugu wanaagsan Saudi Arabia uu leeyahay waa dalalka reer galbeedka dalalka Turkiga dalka la yiraahdo Qatar dalka Morocco dalkaasi Tunisia dalka Lebanon iyo dalalka Iraq Iran iyo dalka Pakistan iyo dalka Bangladesh ilaa 12 dal Malaysia 12 Indonesia 12 dal oo dalalka islaamka ayaa Saudi Arabia uu la leeyahay cilaaqaad aad u liitay oo xagga markaasi oo uusan tagin boqorkaas ama madaxda sarsare Maxamed bin Salmaan uusan tagin Maxamed bin Salmaan safarkii uu ku soo maray bilowgii xagaagan uu ku maray dalalka caalamka waxa ugu badnaa oo tagay dalalka reer Europe wuxuu agta mariyay dalalka Britain France Talyaaniga Jarmalka dalka Finland dalka la yiraahdo Belgium Mareykanka iyo Canada ayuu tagay hal dal oo dalalka islaamka aan isku tagay Imaaraadka Carabta hayna muu tagin sida daradeed dalka dhaqaalaha ugu badan ama hubka ugu badan uu ka soo iibsado waa Mareykanka dhaqaalaha ugu badan dalka uu ku maalgelinayo dawladda Saudi Arabia waa dalka Mareykanka dhaqaalaha labaad dalka ay ku maalgelinayaan waa dalka Britain dalka saddexaadna waa Faransiiska afraadna waa dalka Norway shanaadna waa dalka la yiraahdo Jarmalka hal dal oo dalalka islaamka oo Saudi Arabia ay dhaqaalo maalgelin ah oo ilaa xad ay siinaysa ma jirto waxyaalaha kale siyaasadda dalka Saudi Arabia ninka dhalinyarada ah uu markaas wada waxa weeye dalkan Canada isku dhacan ay isku dhaceen waa laga yaabaa in uu dabcan uu daaran yahay in uu ismuujiyo Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis laakiin waxa xaqiiqa in xiriirka Canada iyo qoyskan reer Badawi ka dhaxeeya ay cilado dhan daaran tahay wax ka khuseeya arin diimeed iyo wax ka khuseeya Saudi Arabia inay qatiyad carbeed iyo mid islaam difaacaysan maaha qoyskan wiilkan xiran ee Raif la yiraahdo oo asagu ah ninka reer Badawi ugu weyn ee qatiyadan bilaabay ama ololahan Sacuudiga ka dhanka bilaabay xaaskiisa iyo caruurtiisa waxay u carreen ama iska dhiibeen dalka Canada way soo dhaweysay isla qatiyadii bayna Canada ka hadashay Canada waxay abuurtay organization ama ururo taageera dadka xuquuqul insaanka halkaas u dhaqdhaqaaqa waana qoyskaas iyo xiriirka Canada ka dhaxeeya waxa soo dhibaato iyo xiriir goynta ardada ay dalkaas ka cayrinayso iyo waliba diyaaradii oo ay mamnuucday ay yani waxa soo saameyn ay sameysay Canada ilaa hadda waxay muuqatay inay dulqaad weyn muujinayso waayo Canada hadii ay dulqaad aysan muujinaynin عادات إن كبدن بيسعود عربي أي ساري كريسي لكن إلى هذا كندا ويسكا إغنور جنايسي أما ويسكا دجا مرسا وحاسيام نقطي إن كوح كم ذا أما وحياله وجود بيجي ورك وجود بيجي حكم ذا إن كوح كم ذا كوح ليره هذا مركز كوح ذا ورك يصور هذا KSA بقرطوية السعودي عربية oo barta Twitter-ka ah kule raaciyo gaaraya 350,000 oo qof ayaa waxay soo dhigeen sawir muujinaya diyaaradda Air Canada ama diyaaradda dalkaasi ee Canada oo markaasi ku hoobanaysa daar kamid ah daaraha dhaadheer ee dalkaasi
ee dalkaasi Canada waxaana lagu soo qoray hal ku dhig markaasi Carabi ah oo muujinaya oranaya ka asagu farageliya ama faragelinta sameeya ama qofka asagu xumaanta faragelinta ah ku sameeya cid kale wuxuu jawaab u helaa wuxuusan mahadin ama uusan ku farxin sawirka markaasi barta Twitter-ka la soo dhigay waxa loo ekeysiyay qaabkii diyaaradihii 2001 bishii 9/11 ay ama diyaaradii markaasi Twin Towers ka diyaarihii mataanaha ay magaalada New York weerarisay qaabkay ugu soo socotay oo kale marka isla markaana waxa mahmaha kale oo lagu qoray baa leeyahay carabtu waxay kale ku mahmahdaa leeyahay qof kale waxa leeyahay sankiisa hafarafreen ayaa lagu yiri sida daraadeed arintaas waxay cariweyn ka muujisay dalalka reer galbeedka oo dhan isla markaana dalka Saudi Arabia laftiisa ayaa hadalhayn xoogan ka keentay isla markaana waxa khasab noqotay in kooxda markaasi tiraahda ama barta Twitter-ka la yiraahdo infographic KCA la yiraahdo ay khasab ku noqotay inay ka saaraan markaasi hadalkaas waxayna ka bixiyeen raaligelin in hadalkaasi uusan ujeedo aan ka ahayn yaani in waxay yiraahdeen la taageero in la soo celiyo bay yiraahdeen safiirkii aysan uga jeedin ama ujeedkooda uu saas ahaa waxaana taas mar kale dabalka ka qaaday tuhumkii ahaa in dawladda Saudi Arabia ay la kulahayd weeraradii 2001 ka dhacay dalka Mareykanka oo haatan maxkamad ay kaga socoto arrimaha dalka Saudi Arabia marka cilaaqaadka markaasi uu markaasi uu wanaaji karo u taala Maxamed bin Salman bin Abdulaziz waxay ahayd inuu wanaajiyo xiriirka dalalka kale ee Carbeed dadka Carbeed iyo dadka Soomaaliyeed mar walba dad walaala shucuubta Carbeed iyo dawladaha xukaamta Carbeedna inay kala soocan way fiican tahay waxa yeeshee indhergaradnimada dadka Soomaaliyeed dabcan dad badan oo indhergarada ayaa fahansan in xukaamta ama dalalkan Carbeed madaxdoodu ay yihiin kuwa markaasi dhibaatada maanta dalalka caalam islaam ka jirta sabab u ah badankooduna gacmahooda ku sameeyay haday tahay kala qaybinta xoogan haday tahay burburinta xoogan shirki jaamacadda Carabta iyo dalalka xooganaha jaamacadda Carabta oo ciidamo Carbeed oo aan jirin shirki ama dalalka jaamacadda Carabta oo gabi ahaanba mid isku haysta oo isku tuhunsan dalalka Carbeed oo qaarkood dhiig mayd ka soconaya sida dalka Yaman oo kale iyo dhibaato xoogan oo ka jirta dalalka Carbeed ee lagu duulay gabi ahaan in dalalka lagaga soo duulay yaani dalka Saudi Arabia siyaasadan awal ba iyadoo siyaasadiisu ay dhitinaysay oo dhito xoogan iyo kala qaybsanaan xoogan ay ka jirtay haddana ninka dhalinyarada ah ee aad reer galbeedka ugu dhow haddana wuxuu muujinayaa inuu gabi kala ka sii tuurayo aadna ugu sii kala fogeynaya shucuubta caalamka islaam waxaana moogaanina in 70 sanadood Israel ay joogtay bariga dhexe ama dal Israel yiraahdo laga dhawaaqay bariga dhexe in markii ugu horeysay Saudi Arabia ay ogolaatay in diyaarad Tel Aviv ku socota ee hawada barakaysan ee dalka Saudi Arabia ee dabcan guriga qof kasta oo muslina ay dul marto inuu Maxamed bin Salman ama MBZ uu ogolaaday tanuna ma aha siyaasad ama ma aha wax aan ogol dan leenahay anagu inaanu Saudi Arabia ama madaxdooda si gaar ah ama dooq gaar ah u qabnaa ma jirno waa wararka caalam islaam ka jira waa wararka xukunka Saudi Arabia ka jira dabcan wararkaas oo kale ayaanu ka keenaa Mareykanka wararkaas oo kale ka keenaa adduunka ka gaan dunida oo dhan waana sida marxaladda dalka Saudi Arabia haatan u soconayso dabcan in isha lagu hayo waayo labada meelood ee adduunka ugu wanaagsan ayaa ku yaala oo dabcan shanta waqti aynu tukano iyo sunnayaasha aynu tukano ayaynu u jeesanaa sidoo kale waa hooygii nabigeeni subanaa naxariis iyo nabadgelyo ee korkiisa ha yeelo sida daraadeed siyaasad kasto ka jirta waa hoggaanka barti ay noqon lahayd hoggaanka wanaagsan ee ummadda islaamka ha moogaanina in Ramadaantii hore Arbaan hadda ina dhaftay Ramadaanteedii kolkay cunaqabataynta saareen hadal kamid ah hadaladii taariikhda galay waxa sheegay madaxweyne Erdogan wuxuuna warqad qoraal uu gacantiisa ku qoray uu qoray boqor Salmaan uu ku yiri waxa tahay ilaaliyaha labada aqal ee xarameynka ee sharafeynka sida daraadeed waxaad mudan tahay inaad dadka islaamka oo dhan oday u noqoto adoo taa kaashanaya isla markaana ilaalinaya xilliga barakaysan ee lagu jiro iyo samcadda islaamka ka qaad cunaqabataynta dalka yar ee walaaladaaya dabcanna si kastoo ay noqotaba dalka yar ee Qatar ayay dabceen inay qabsadaan oo burburiyaan xukunkaas halkaas ka jira Yaman baynu aragnaa dhibaatada xoogan ay ka wadaan waxaanu aragnaa faragelinta xoogan ee Sacuudigan aynaahna xukuumadan reer Al Sacuud ay ku hayso dalalka kale ee Carbeed ee Lebanon ka mid tahay waxaanu aragnaa dhibaatooyinka guud ee dalalka Carbeed oo dhan kala soconaya xataa waxaanu aragnaa inaga Soomaali ahaan
siyaasiyiinta waaweyn ama diblomaasiyiinta sarsare ee Saudi Arabia qaar baa waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay xabash ahayd oo ardul xabash ay ka mid noqdaan oo ay Soomaaliya lagu daro xabashida Wikileaks baa qoray 10 sanadood ka hor waana waraaqo sax ah oo safiirada waaweyn ee Saudi Arabia oo xataa uu kamid ahaa wasiirkii hore ee ugu xilliga dheeraa Amir Faisal al-Saud oo kamid ahaa Amir Saud al-Faisal oo kamid ahaa uu qoray bay kamid tahay waana faktiga jira waxa kale oo jiray in xilliyada adkaa ee Soomaalida ay ugu dameysay abaartii dhaweeytay Saudi Arabia waxay joojisay xoolihii ee Soomaalida ay u dhoofi jirtay hadeerto oo lagu jiro xilligii xajka waxay dhimeen dhamaan xoolihii ay Soomaalida ka iibsan jireen waxayna boqolkiiba 60 ay hoos u dhigeen qiimihii ay ku qaadan jireen bedelka Yaman oo cayda oo baaba xooggan uu ka jiro ay xoolo badan inaga iibsatay iyo Masar oo xoolo badan inaga iibsatay oo inagna dhaqaale ahaan halkay joogan daawada qiimaha leh Soomaalinimada ayaa mar walba muhiim ah inaynu meelaha danta inuu jirto inuu ogaano dabcanna dadka Soomaaliyeed saaxiibadu joogto ma noqdaan waa in cid kasto Soomaali wax u geysata ama wax ina tarta aynu ogaana xilliyada adag dadkeenu markay qaxaan iyo dhibaatooyinka xooggan in soo fod saaray sida daraadeedna tan iyo inta sarki doono faafinta wararka xaqina ama